maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ee Puntland ayaa maanta go'aan ka gaartay raggii loo haystay dilka iyo kufsiga loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo raantii sanadkan dil iyo kufsi loo geystay magaalada Gaalkacyo. Cabdicasiis Saciid Baarad ayaa warkan faahfaahinaya. iyadoo in muddo uu soo jiitamayay kiiska ku aadan kufsigii loo geystay Aisha Ilyas oo horaantii sanadkan 2019 kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ugu dambeyn maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal waxay maanta ka gaartay kama dambeys ku aadan xukunka lagu riday eedeysanayaal ku eedeysan inay kufsi iyo dil isugu dareen Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar da'yar oo ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Abubakar Cabdinuur Jaamac gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayaa ku dhawaaqay xukunka kama dambaysta ah ee kiiska Aisha Ilyas oo loo haystay 3 eedeysano oo ku jiray gacanta maxkamadda gobolka. Horay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka ayaa xukun dil ah ku riday dambiilayaasha loo haystay dilkii iyo kufsigii ay Gaalkacyo u geysteen marxuumad Aisha Ilyas oo ahayd gabar da'yar kuna nooleed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Markii ay xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal dambiilayaashan ayaa la siiyay fursad ay ku qaadan karaan racfaan muddo 30 cisho ah iyadoo fursadaasi kadib maanta mar kale maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad kaasi oo ahaa dil. waxaana ku dhawaaqay xukunkaasi Abubakar Cabdinuur Jaamac oo ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal. maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal waxay xukuntay soo saartay xukunka ku saleynaysa shariicada islaamka. waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah Cabdifataah Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK yana 763 oo soo baxay 12 bishii shanaad 2019. Oskin suuradda Al-Maa'ida aayadda 33aad, suuradda Ashura aayadda 4aad, suuradda Al-Israa aayadda 33aad, suuradda Baqara 178-179, suuradda Al-Maa'ida 45. Oskin kitaabka Al-Ifdal بالقرائن في الفقه الإسلام صفحة 58 إلا 108 وقري إبراهيم محمد الفائز من كتابك نظامك قضاء في شريعة الإسلام صفحة 185 waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare 30 cisho gudahood. waxaa ku saxiixan gudoomiyaha Aadan Maxamed Axmed, Abubakar Cabdinuur Jaamac, Saciid Xasan Maxamed iyo Maxamed Jaamac Faarax. si kastaba ha ahaatee kiiskan Aisha Ilyas oo soo jiitamayay in muddo ah tan iyo horaantii sanadkan 2019 ayaa maanta ugu dambeyn waxaa go'aan ka gaaray maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal iyadoo ay eedeysanayaashii lagu soo eedeeyay kufsiga ay u geysteen Aisha Ilyas lagu xukumay dil.